Somaliland mise dadka kale Somaliland intaan joogay hal qof oo in xariisto waliga ma arag afayeen baan ahay darbitiiftaan xukumaa darbitiifta inta doxyada loogu tago bariis looma geeyo looma adeego waxba lama siiyo cunto lama siiyo fusta lama higiyo حسين ودب بدن دربشيفته واحتري مر بدنو kala duwan qurba joogta Soomaaliyeed baa tiray noloshii دربشيفته hadiiba maanta hanbadii liidikay ibinayo halkii ay ku socotaa wallahi Xuseen wallahi inuu noloshan meel ay ku socoto ma garanayo dadunidana maanta waa akhirsaban aan waxaan jeclaan lahaa erkiyo dhulka Ilaahay oo la laabaan ka jeclaan lahaa way noloshu markay kugu adkaato qof walba waa dareemi kartaa qoos baan ka taaganay ay nasabada waan bedelayaa wasaaradda waa la idido waa la meelotikoreeyo waa la soo celiyo agaasimaha guud baan tagay ku mid tikoreeyo ku diiday ku cusuriye igama qabanayo telefoonka waan garaacay door jeer baan ku celceliyay atlamaan ilka xasa agaasimaha hore arrimaha bulshada ayaa ii soo diray la hadal buu igu yiri waa la hadlay igama qabanayo masaaradii waka agaasimihi markaysa waa agaasimaha guud ee arrimaha bulshada igama qabanayo telefoonka aadmiga naftaydo aariyada baldooxo waxaan galaa arooraha aqalkan ku leeyahay agabkaygu waa ciid naf baan ahay dheelido tantaal iyo ciil qabto intuu dhaawacay waqtigu darbaaxada waayihiyo duruufuhu dhalan rogeen barbarkayga wax fadhiya gudoomiyaha dhalinyarada darbujiifka Somaliland Xuseen Mandela Xuseen maxaa soo kordhay aad maanta nala wadaagaysaa walaal xaaladda maanta xaalad adag weeyaan maadaama toona tiri lagu jiro 7 aakhir 7 lagu jiro dadkeena ayna garashada iyo cilmiga iyo waaya aragnimada iyo baadariisankii nolosha ayna garanayn dadka Somaliland jooga ayaan u jeedinayaa dardaaran iyo dhiirigelin inay dhagahooga wax ku qaataan muxuu yahay dardaaranka dhibaatooyin soo kordhay oo darbijiiftii soo wajahayba ma dhibaatooyin kale oo ku soo kiciyo kugu sababay inaad warbaahinta la hadashaa jira walaal horta alxamdulillah horta ilaahay baa mahad leh anigu 19 sanadood ayaan hadlayay oo doodayay 19kii sanadood ee aan doodayay waxma arintayda layma soo dhag layma yeedhin wasaaradda Home Childrenka arrimaha bulshada iyo shaqagelinta Somaliland hadda imika sida ila muuqata wasiir Cali Xulxoor baa haysta agaasimo guud baa loo soo magacaabay wasiir ku xogeen baa loo soo magacaabay wasiir ku xogeenka xanaanada xoolaha Europe baan jida ayaa la keenay walaal maanta ciishada aad arkayso magaalada Hargeysa aad bay cirkays ku shareertay quruduruurigii baa adkaaday tay soo kicisayna waa taa baarlamankii miisaaniyadii darbitiifta way hortaalaa cid ka hadashayna walaal ma jirto way xuquuqda Home Childrenka 19 sanadood baan soo waday wallahi qof muwaadin oo reer Somaliland ama qof madaxa ama qof basuula oo intuu soo istaagay noloshayda iyo waaya aragnimadayda igala hadlay walaal ma jirto dhibaatooyinkeedu ku daran imika Xuseen ay haystee waliba xilligan 2023 adreemaysan maxaa kamid wallahi 2023 waxa kamid ah tacadiyada loo geysanayo darbitiifta iyo gaajooyin ay tabanayaan mar walba hoteeladii cashuur baa lagu soo kordhiyay waxa jira ninka weel xalista ee hoteelka u shaqeynaya intuu ilmahan darbitiifka ku dul shaqeysto ayuu shanku ka qaadanaya dabatana cunno yaro hamba abu siinaya dabatana hambadaas ku nool ilmahaas kalka war marka hambadii aad hoteelada ka qaadan jirteen ka wixii cunto haraaga ah ee darbijiifta qaarkood ku noolaayeen baba imka iib gashay oo lidika iibinaya waaba hambadii baba laga iibinaya waayo hoteelka waxa weeyaan waxay shaqaale leeyihiin ninka weelka xala lacag baa la siiyaa de waxa weeyaan isagiiba iibinaya hambadii oo wuxuu ka qaadanayaa 2000 iyo 5000 marmarka qaarkood hambada hadii loo sii badiyo 8000 inuu ka qaato laga yaabaa waayana xogogaal ugu aamugti marka hadiiba lacag aad ay siisanayaan darbijiiftii aad gudoomiye ahayd cuntadii hambada ahayd tacaadiga ahna waa lacag soo maaha Xuseen tacaadiga laftiga iska cuni kartaa soo ma tacaadiga laftiga waa lacag laakiin se waxa weeyaan maciishadii lacagtii baa kordhay walaalday leesweydiin baa la leeyahay yaa sabab u arintan inaysan wax kordhaan waxa sabab u ah walaal ganacsadayaasha magaalada Hargeysa degan
wax soo dejiya ayaan ku eedeynayaa oo inay waxaan dalacaan iyo xukuumadda ayaan ku eedeynayaa walaal oo labadoodu waxa weeyaan waa iskaashi gacmaha isku haystaan waa dad wala shaqeynaya laakiinse labadooda ayay ka go'antay inay maciishada hoos jabiyaan noloshii dabjiifto hadiiba maanta hambadii leedika iibinayo halkii ay ku socotaa walaal Xuseen wallahi niyo noloshan meel ay ku socoto ma garanayo daduniduna maanta waa akhirsaban aan waxaan jeclaan lahaa arkiyo dhulka Ilaahay oo la laabaan ka jeclaan lahaa way noloshu markay kugu adkaato qof walba waa dareemi kartaa qoos baan ka taaganay ay nasabada waan bedelay anigu maadaama la ii dhiga adeeg waayay la ii soo joogsan waayay wasaaradda arrimaha bulshada iyo shaqo-gelinta aan tagay miisaaniyada darbijiiftu rakudul xaragoonayaan ku dulabisanayaan ya nasabada intaan bedelo baan la ilaahay akhrisamanka nagu soo dadeji waayo ragan miisaaniyadii darbijiifta ku dulabisanaya ku dul xaragoonaya cunayana waayo raga bal hadal carbaabtooda sheegtid walaal kuwii horeba calaamadaha ka soo baxay oo ka ifay calaamadaha waad garanaysaa qaar baa dhintay qaar baa China tagay oo faraha laga soo baxay oo dumara oo siirahan jiray halkan ma magacaabaye ma fahanti waxay ugu waasir weeyaan baadariisanka noloshan fahmi ما فهمت ولا waxa weeyaan miisaaniyada darbijiifta cadayno haysa waa aadaan culus inaad dad mas'uuliyiina Xuseen ku eedeysid inay lacag darbijiiflaad cunaan waa aadaan culus xal cadaymo waxaan cadayno hayaa qoondadan ka eegay lacagta goglahan ka eegay lacagtay tahay xildhibaan barxata macbatoon iyo xildhibaan maxamed abiib iyo laab saalax ayaa sheegay oo miisaaniyada dhexdeeda sanadkii hore ka sheegay baarlamaanka taas ku cadaynaya lacagta marka aad ogaatay darbijiifta xadii talag ba marka ma lacagtii oo dhan ayaa leedahay ma soo gaadhay darbijiifti wax darbijiif ay lacag soo gaadhaa ma jirto iyaga ceelno ma qodna godad bay ku jiraan darofay ku nool yihiin taxamihii baa imika bilaamaya bilowbay inoo tahay marka waxa weeyaan cidna uma naxariisanayso war reer Soomaaliland naxariistii halkay martay ayaa horta is weydiina xukuumadda naxariistii halkay martay ayaa is weydiina adeeg ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri ilaahay isku naxariista markaasaan inay naxariisanay bal haday reer Soomaaliland darbijiifta iyo sayaan ka war ya xukuumaddiiba dadkayna hoos u eegeenba Xuseen dadkan aad imika iyaga wax ka sugaysid ilaah ka weyn ayaa jira oo adiga iyakaba idin dhaxeeya naam hadii aad qoys ka soo istaagtay bulshadii iyo xukuumaddii iyo ganacsatadiiba xaq ilaahay ma u noqotay hadda darbijiiftiin horta anigu ilaahay waan bariyay alxamdulillah hadana fayeenkii darbijiifta ahay ilaahayna waxaan idhi ilaahu umada yar yar ee darbijiifta ah ee homes childrenka ah ee muwaadiniinta ah ilaahu mid khayr qabasi 9 bilood baan u shaqeynay qurbo joogta Soomaaliyeed ee dunida gacaleedeeda ku nool ayaan uga shaqeynay waayo iyaga soo diray aniga xildhibaan barxata macbatoon 9 bilood baan u shaqeynay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahayna marxaatibu noogay warbaahinta oo dhan waa la soo dhigay dhaxamtii hore hadda imika tan bilaameysana cid nagala shaqeyn doonto ma hayno baarlamankiina waxaaba ku jiraaba doorasho iyo golo deegaan iyo iyagii dhaxdoodii iyo isqabsado iyo waxaylaasi ku mashquulsan tan darbijiiftana ka la yaab badano inay qabtaan oo ajar iyo saxanad ilaahay ka siinaya wasiirkii arrimahaas qaabilsanaa ma u tagteen ma la kulanteen wasiirkan cusub wasiirku muraayad madow u gashanayba meediyahana maba daawadaba marka waxaan oran lahaa wasiirka mar hore aan ku yiri muraayad cadaan gasho muraayad cadaan oo wax ifisa oo wax aragta oo dareenkaaga iyo waay aragnimadaada iyo shaqadan lagu igmaday aragta muraayadan madow saar oo muraayad cadaan gasho qoraan uga yiri Xuseen oo intaad wasiirka eedayn ma u tagtay adiga laftigaagu ma isku dayay wasiirka la kulantay wasaaradda waa la idido waa la meelotikoreeyo waa la soo celiyay agaasimaha guud baan u tagay ku meelotikoreeyo ku diiday ku cisuriyay Abdiraxmaan ilka Case ayaa soo diray markiisa wasiirka agaasimaha guud ee arrimaha bulshada waan hayaa markiisa waa kan igama qabanayo telefoonka ما فهمت وسارده وان تجي حتى قراعيا وان تجي وسارده ما كان قراعيا سوق وان تجي إذا ما قبنيه تليفونك وان قراعي دور شهر بان كل علي أتلمان إلك عسى أقاسمي ورا ما بالشدة
ayaa ii soo diray la hadal buu igu yiri waa la hadlay igama qabanayo masaaradii waka agaasimihi markaysa waa agaasimaha guud ee arrimaha bulshada wasaaradda arrimaha bulshada igama qabanayo telefoonka ma tagtay wasaaradda waan tagay waa la milto koray qaybta askarta iyo qaybta kuwa ammaanka waa la hadlay telefoonka igama qaban uu milto koray wuxuu diidan yahay hadalkan aan ku hadlayo iyo waaya aragnimadeeda iyo badariisankan aan ogahay ayuu diidan yahay waka wasiirki agaasimihi guud ee arrimaha bulshada wasiirkana telefoonkiisa waan garaacay uu iga lumay imika telefoonkayga hor u raacay marka waan garaacay isaga maalintii la doortay baan garaacay igama qaban dhibaatooyin badan oo haysta darbi chiefta muddo dheerna waxaad sheegtay inaad u soo hadlaysay kuna hadlaysay codka darbi chiefta 19 sano darbi chiefta aad iyo aad wasaaraddiina waad eedaysay in arintaas ay ka gaabisay bulshada qaybaheeda kala duwan fariinta ugu dambaysa u diraysa maxay tahay bulshada Soomaaliland joogto waxaan fariinta u dirayaa maadaama oo aad ubadka aad maanta dhasheen iyo ubadka maanta halka doxyada jooga waxa weeye waa isku mid ilaahay baana abuurtay haddaad hakrateen oo dayacdeen oo idinka shicibkiyood aad yeesteen oo dariiqyada aad ku dhaafaysaan ilaahay waxaanu ka baryaynaa sidan maahe cirkiga dhulkaba ilaahow laab waayo qad noloshu marbay ku nacsiisaa marbay noloshu hoos ku tagtaa oo waayo aragnimada iyo noloshaada aad nacdaa maadaama oo ilaahay ku farxiyaa qaadirnay dadka dad badan oo wanaagsan ayaa ku jirta haye hadiiba aad bulshada fariin u diraysid inaad habaar ka reebtay Soomaha oo cirkiga dhulka ilaahay baa deesagu xilligu laabaya garanayay inaad dadka wanaagsan dadka bulshadu qayb xun iyo qayb wanaagsan boo leedahay dabcan cid walba bulshadu way leedahay maya dhaliishayka ugu badan walaalo habaarkeeda joogsamiyaan dadka Soomaaliyeed reer Soomaaliland mise dadka kale Soomaaliland inta joogay hal qof oo naxariisto weligay ma arag afayeen baan ahay darbi chiefta xukumaa darbi chiefta inta doxyada loogu tago bariis looma geeyo looma adeego waxba lama siiyo cunto lama siiyo fusta lama hibiyo sheenu dad badan darbi chiefta wax taray mar badan oo kala duwan qurba joogta Soomaaliyeed baa taray anigu qabyaalad ku tilmaami mayno imika waxa idin sheegaysaa marka taamto reer Soomaaliland ma waa reer Soomaaliland dad badan oo kale wax tarayna soo ma jiraan oo wax u geey oo wax ma jiraan barkhadun baa irgalay shaqeeyay barkhad baana afka furay oo idho umada Soomaaliyeed ay Hussein Mandela ku soo doofayla waxaan ahay masaakiino maan helina maaniyo wehel igu aamino aadmiga naftaydo aariyada baldooxo waxaan galaa arooraha aqalkan ku leeyahay agabkaygu waa ciid naf baan ahay dheelido tantaal iyo ciil qabto intuu dhaawacay waqtigu darbaaxada waayihiyo duruufuhu dhalan rogeen dhalaan aan waalid iyo walaal dhashay lahayn dabtii ehel baan aho wadada dhinaceega iyo ku koray darbiga inta waan dhiiradaa dambaalaan soo diraa haddana lama dhaadaye kuwaan u dhawaaqayo miyeedaan dhaga lahayn war intaan isku dhiignihiyo dhammaan Soomaaliyey dhageysta warkayga oo arkoo dhaayaha u fura dhibaatada ay ku jiraan haddaad dhisateen guryo sariir dhigateen qurxoon dhar iyo baso saarateen anigu dheel soo diiyo dhaxanta waxba kama hiwado haddaad diiniga cuntada markaa daragtaan qubtaan waliba dheeldheelaysaan anigu deefmaan helin dandamiyo oon maliqin hadduu duray kugu wardhaco haddaad dhakhtarada tagtaan anigu dhumiyarisiyo bukaan baanay xanuun dawiyo dhana ma helo haddaad dheeldheelaysaan ubadka aad ku dhaarataan dugsiga u dhaqaatisaan anigu dhaxamaha jaliga ayaan ka dhaxooyaya dhulka rabbigii golle cirka udub la'aan dankiisa inaan ka helo dhamaysiyo nolol haboon dhalar qoro u kara marka walaal waxaan fariinta ugu soo biirinaya xukuumadda Soomaaliland inay xariisato baarlamankuna inuu si gaarsi baarlamanka gudoomiyaha gaarsi xildhibaanada gaarsi fariintaydan degta ha furan waxaan leeyahay ilaahay baa ina xisaabinaya xaqqa haddaad ka hadli weydaan maalin baa iman doonta ilaahay gacantiisa dib lagu noqon doono oo la xisaabin doono oo summa lam yatuubuna falahum cadaabu jahannama falahum cadaabun xariiq naf walba geeri way dandhamin markaa fariintaydaas cid walba inaad iro gaarsii ciddii damiir la gaarsii ciddii bidaa damiirna gaarsii waayo adduunyadan waa islaba rog runay lagu nacab la iska kaa reeb fula kaa roor lagu rookee meesha daaqad waa laga waleeri waayo run iyo been lama kala saari karo
run sheegay baa maanta la diidan yahay beenaalihiina waa la soo dhawaysanayaayo waa ka wasaaradda arrimaha bulshada fadhiya ee raaxaysanaya daawadayaal intaa waxaynu ugu idil waraysi gaaran halka kaga qaadaynay Xuseen Mandela oo afayeenka darbijiifta dhalinyarada darbijiifta ee reer Somaliland waraysigan waxaa idin la socodsiinaya aniga Cabdiraxmaan Jumba